waxay u isticmaalaan geedkii oo dhan bay biyo ku dhex ridaan sidan oo kale geedkii oo dhan ayaa biyo lagu dhex ridayaa daawadiisii oo dhan hal mar bay dhaqmaysaa arrintaas marka waa laga fiican yahay dad badan baa sidaa u isticmaalo balse ma balansi garaysno daawadiisii balansi ma aha waa marka laga fiican yahay qaabkaas in loo isticmaalo qaabka ugu wanaagsan waxa weeye markuu yahay tea bagta sidan oo kale tea bagta tartiib in loo isticmaalo oo waxa weeyaan tan oo kale tea bag ba hadda ku jirta caleentan oo kale waa tea bag tartiib in galaas biyaha lagu rito asagoo qiyaasan sidaa lagu cabo waa sida ugu fiican oo loo isticmaalo qiyaastiisana aysan lumeynin balansigiisana uusan kala lumeynin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لها مسلمين تعمل كستو جوكتان بوحان يدين رجينا يا عافماد يا عمر الدير يا عبادة صن أطقوا وعطان إن شاء الله تعالى كليب كان واحد أقب بقندونتان كيت كان على أركيسان فائدوين كأولي هاي إيو وحا وداويو محالو استعمالا كفل مريم سيدي لو استعمالا أو أغفي عن يا استعمالي كرا جيت كان قف كستمي استعمالي كرا yaan isticmaali karin iyo waxaan insha allahu tacaala ku soo gudbinayaa geedkan xagga uurka haweenka ma ka saacidaa ragga muxuu u taraa su-aalahaas ilaa 4 su-aalood ka kooban oo inta badan dadku ayna weydiiyaan baa waxaan rabaa geedkan insha allahu tacaala inaan uga hadlo sidaad arkaysaanba geedkani waxaa laga qoray wax aad u fara badan research aad u fara badan wadamo badan ayaa research ka qoray dhakhaatiir fara badan ayaa cadaysay geedkan waxa uu yahay Soomaaliduna waayahan dambe way ku cusub yihiin isticmaalkiisa qaabab kala gedisan bay u isticmaalaan marka waxaan rabaa qaabka ugu wanaagsan inaan idinku soo gudbiyo insha Allah taala saad arkaysaan geedkan wuxuu ka koomaa oo sidiisaba uu ka samaysan yahay kow sidii geed ahaan tahaydaas u baxay ood aragteen sidan oo kale waa ku yimaadaa waxaa kaloo isku yimaadaa asaguna mid tea bag ah oo sidan oo kale ah oo caleenshaahada camal oo kale bakeeriga galaas biyo oo kulul inta lagu darsado la cabayo wuxuu leeyahay kaniin caalamka qaybo ka mid ah daawooyinka kaniina caadi ah laga sameeyaa daawooyinka la sameeyo ayaa lagu daraa سؤال كوباد أو أورانيس مركا محلو استعمالا كفل مريم كفل مريم وحلو استعمالا أو انت بدن رسالة كدتك الراديي أي كوليستين إني سوء قادان وحاوية عادة دمركا هذا وراركا قبا كو عادة لبتو حنون نضع حلق عادة كهر هوين إذا مركا عادة كسو دودة هاي وحي دريميسا على مدى فربضان way ka mid tahay stress fara badan inuu ku dhacayo walwal murugaha soo qabanaysa caloosha xanuunaysa wareega xanuunayo waxay dareemaysaa yani constipation wax la yiraahdo calool istaag caloosha istaagaysa cuncun nabarada ka soo daadanaya jirkeeda calaamadahaas ma qabla al-hayl imaanaya haylka ka hor calaamadaha imaanayo dhan geedkan inuu zuulinayo u fiican yahay caadadana uu saxo ayaa horta la isku raacay waa xagga dumarka gabdhaha ka waaweyn caadadu ay ka tagtay buu u fiican yahay bay leeyahay inay isticmaalaan faa'iidooyinka uu leeyahay wax la soo koobi kara maaha marka geedkan xagga dumarka faa'iidooyinkaas farada badan ayuu u leeyahay uu minkana wuu nadiifiyaa wuu hagaajiyaa ugxaanta sidoo kale wuu hagaajiyaa sabood kare waxyaalo badan buu ka hagaajiyaa dheecaano fara badan ayuu ku ziyaadiyaa oo awood u yeela oo xagga taranka ku saabsan sidee loo isticmaalaa marka haddii ay imaado su-aasha ah sidee loo isticmaalaa geedkan dadka inta badan baraha bulshada qowmiyad kasta oo caalamkan maanta joogto way isticmaalaan qolo walbana sibay youtube-ka usoo geliyaan ama baraha bulshada usoo geliyaan sida ugu fiican oo loo isticmaali karo marka waxaa waaye qaar waxay u isticmaalaan geedkii oo dhan bay biyo ku dhex ridaan sidan oo kale geedkii oo dhan ayaa biyo lagu dhex ridayaa daawadiisii oo dhan hal mar bay dhaqmaysaa arrintaas marka waa laga fiican yahay dad badan baa sidaa u isticmaalo balse ma balansi garaysno daawadiisii balansi ma aha
marka laga fiicaya qaabkaas in loo isticmaalo qaabka ugu wanaagsan waxa weeye markuu yahay tea bagta sidan oo kale tea bagta tartiib in loo isticmaalo oo waxa weeyaan tan oo kale tea bag ba hadda ku jirta caleentan oo kale waa tea bag tartiib in galaas biyo lagu rito asagoo qiyaasan sida lagu cabo waa sida ugu fiican oo loo isticmaalo qiyaastiisana aysan lumeynin balansigiisana uusan kala lumeynin yaa isticmaali kara marka yaa isticmaali kara waxaa isticmaali kara qof kaste oo xanuunsan caruurta yaryarka waxaan ka ahayn dumarka iyo raggaba xagga dhasha cilad ka qabo dumarka khaasatan dhashu kasoo daahday way isticmaali karaan haddii aysan yani markaasi uur lahayn qaar dadka researchka baaray oo kale dumarka way cabi karaan oo kale iska yiraahdo waan aragnay laakiin taxadar ahaan haweeneyda hadday uur leedahay hadday xanuunadan kansarka kaniinkiisa ay qaadanayso ay qabto waxyaabahaas oo dhan ma isticmaalayso hadday nuujinayso waxaas oo dhan waa lid taxadar in laga taxadaro waaye laakiin qaar baa waxay yiraahdaan caanaha wuu ziyaadiyaa oo kale anyway waxaa muhiim ah in la taxadara ayaa muhiim ah marka geedkan haddii haweeneyda nuujinayso hadday uur leedahay waxaas oo dhan xagga iska dhig waxaa muhiim ah haweeneydu markay dhal raadinayso ama caadada qalqal uga jiro ama ay ku xanuunsanayso inay isticmaasho ninka ragga ah haddii asaguna xagga isbaamkiisa shahwadiisu ay tahay mid daciif ah oo heerkii meeshii loogu talagalay aysan waxba gaarsiin karin inuu isticmaalo sidii shaah oo kale 3 bilood in la isticmaalo ayaa muhiim ah qofka hadduu 3 bilood iska isticmaalo geedkan oo sidii shaah oo kale u cabo waxa weeyaan xaaladiisa markaasi way hagaagaysaa laakiin qof baa usbuuca qaadanayo wuxuu rabaa result degdeg ah inuu helo khuliqa al-insaanu min ajal سأريكم آياتي فلا تستعجلون وحويان وحني وحكستو أو تربط إناد كمل جارتو وقت إناد سيسواي بلوين إناد استعمال شواي مركز دوس أهان قابك هو ناكسن أو ضد كان رساج كان قري إليهين 3 بلاد أي نتيجة هو ناكسن لو أركي كلا استعمال كي سنة نوع عسل استعماله أوكي مركز جيت كان حاجة أوركا wuxuu ka saacideynaya dumarka waa ka saacideynaya raggana waa saacideynaya inay hawshooda meel dheer ay wax gaarto labadaba waa ka saacideynaya geedkan marka insha Allah taala waxaad ka heleysaan xarumaha al-hilaal waad ka heleysaan asagoo tea bag nooca tea bag anigu mar walba dadku dardarmaan labadaba waa haydna شفاء لروحي وحبل المتين bulshooy bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo moogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayo mid cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga 100 qof igu dhex daray cudurrada laga daaweynayo waxaa ka mid ah dhiig furanka waalida caado wareerka umusibyaanka gabdhaha wejiga ka halaabay baabasiirka dhagaxa kiliyaha gala xoojinta raganimada isha dhiigkarka sokorta naxdinta kili xanuunka waswaaska madax xanuunka jinka dhalmala'aanta dhasha Allah bixiye toobinta iyo kuwa kale oo fara badan